balaski targetka laga dhigtay oo lala eegtay hoobiye anagu waxaan ka midnahay bahda caafimaadka maanta kaliya ma aha ilaa iyo intii uu dagaalku socday waxaan leeyahay 22 bari buu socdaa ilaa inta waxa la beegsanayay meesha targetka waxa la saaranayay bahda caafimaadka anigu waxyaabaha aan u soo joogay waxaan kamid ahaa bahdi caafimaadka ee ambulance-ka gargaarka degdega loo yaqaano waxay aadka targetka u saaranayeen ambulance-ta waxa dhintay dhaqaatiir badan dhaqaatiirta aniga ay la shaqeynayay qaar way dhaawacmeen qaarna way dhintay Allah ha u naxariisto ku iga garab shaqeynayay marka mar walba waxaad moodaa waxyaabaha kale aan arkay ee anigu aan indhahayga jaabtu u soo ahaa ee aan ku moral jabay waxa weeye aniga oo dhaawac soo dhigay oo maraya isbitaalka weyn hortiisa ayaa hoobiye nalaga eegtay hoobiyihii alxamdulillah anagu waan ka badbaadnay laakiin waxa meesha ku naf waayay 3 ruux oo ana u jeedaba ay mudusurka ka go'ay marka waxyaabaha iigu yaabka badnaa aniga waxa weeye anoo dhaawac wada oo dhaawici kalena layga dhaawacay inaan haddana ambulance-ki targetka laga dhigtay oo lala eegtay hoobiye ama taayiradiiba laga banjariyay marka waxaan oran karaa anigu adduunyaha kama dhicin in la beegsado goob caafimaad oo dadka lagu daaweynayo qaybtii dhiigga qaybtii caruurta hadda waa u jeedaan waatan dhaawac ayaa jiifay way burburtay maamulka Soomaaliland waxay soo saareen waxay dhaheen warqad ay ku beeninayaan ayay dhaheen waxba isbitaalka uma geysan hadda waad aragtaan indhihiina oo marxaatiya ina maanta sida isbitaalka laga dhigay waxa kale oo marxaati doona ina ambulance-sidii la adeegsaday oo la soo wada dhigay marka waxaan oran lahaa anigu waa ina maxkamad ninkaas lala teegsadaa dadka waxa sameeyay ee hoobiyaasha anagu waxaan ku qancano ma jirto waa ina maxkamadda heeg laga teegsadaa takala aan ku diray waxa weeye anagu hadaan nahay bahdi caafimaadka marna dadka yaga uma niyad jabano mar walba waxaanu sameeynaa inaan u shaqeyno waana u dhimanana dadka yaga wabillahi tawfiiq